qisadani waa dhab waxayna ka dhacda dalka Japan waxana markii ugu horeysay baahiye majalad Carabi ah oo xiganaysa wargeys lookal ah oo ka soo baxa magaalada Tokyo waxaa jira wiil iyo gabar aad isku jeclaa oo ka wada shaqeyn jiray goob lagu sifeeyo sawirada kaamirada lagu qaado wiilka inta badan wuxuu shaqeyn jiray gelinka hore ee maalinkii halka gabadhuna ay soo shaqo gali jirtay gelinka dambe waxaana dhacday maalin maalmaha ka mid ah xilli uu wiilku ka rawaxay shaqada inuu maadooyin kiimika ah oo lagu sifeeyay sawirada oo uu markaa ku shaqeynaya si dul saaray kabadh ama iskifaalo qolka ku yaalay inantii ayaa markii ay soo shaqo tagtay gelinkii dambe ee ay guda gashay howl maalmeedkeedii caadiga ahaa waxa ay si kadis ah ugu baahatay halkii ay saarnaayeen biyaha wax lagu sifeeyay ee kiimikada ahaa oo aanay ku ogeyn haddii ay cuskatay ama tiigsatay waxa ku soo rogmaday weelkii ay kiimikadu ku jirtay khayladeedii ayaanay ku soo yaaceen shaqaalihii kale markii ay arkeen in xaaladeedu khatar ku jirtana waxa ay durba ula yaaceen cisbitaalka oo degdeg loo dhigay inankii kiimikada meesha saaray ee ay gabadha isjeclaayeen ayaa isaga oo aanan ogeyn yimid goobta xilligii ay dhammayn jirtay shaqada gabadha si uu horay ugu sii qaado saaxiibtiis waxaana loo sheegay waxa dhacay iyo in inantii uu dunida ugu jeclaa ay taale cisbitaalka xaaladeeduna ay adag tahay dhaawac ka soo gaaray kiimikada darteed wuxuu durba xasuustay in sunta ku daadatay inanta ay tahay tii ugu halista badnayd oo ay qasab tahay in ay dhaawacyo kaga tagto jirkeeda wiilkii inta uu aruursado wixii meherada alaab ka yaalay iyo sawiradii xasuus reebka ahaa ee ay ku wada jireen isaga iyo jaceylkiisa ayuu dhaqaajiyey iyadoo aanay cidi ogeyn meel uu tegay iyo sababta uu u tegay midna asxaabtii iyo ehladii inanta ayaa tegay cisbitaalkii waxaanay la kulmeen iyadoo xaaladeedu aad u wacan tahay loona sameeyey qaliin qurxin ah waxay arkeen inay indhaha wax ka arki karto oo markii hore loo sheegay in araggeedu khatar ku jiro muddo aan badnayn kadibna inantii waa ay ka soo baxday cisbitaalkii iyadoo ciil iyo carab badan u qabta ninkii ay jecleed ee marnaba aan ugu imaan cisbitaalka oo weliba sida ay u sheegeen asxaabteedu maalintii shilku dhacay ka tegay shaqadii waxay u fahamtay in ninkani markii uu ogaaday dhaawaca halista ah ee soo gaaray uu go'aansaday inuu ku cidleeyo nolosha bukaankana ku naco laakiin haddana ma ayan sal fududaane waxay go'aansatay in aanay sidaa kaga hadhin ilaa ay ogaato waxa dhacay kana war doonto halka uu ku dambeeyey jaceylkeedii wacnaa muddo markii ay ku noqnoqonaysa meelihii ay ku taqaanay inuu tago xilliyada uu firaaqada yahay ayaa maalintii dambe nasiib wanaag waxa ay ninkii kula kulantay beer kuwa dadweynaha ah oo lagu nasto oo uu imaan jiray waa ninkii oo ku fadhiya kursi ku dhex yaala beerta aadka u quruxda badan xilli ay neecaw aad u wanaagsani dhacaysay isagoo aan dareensanayn ayaa ay xagga dambe kaga timid waxaana wejigeeda ka muuqday xanaaq aan xad lahayn waxaanay celin kari la'ayd ilmada waayo waxa ay xasuusnayd halkii uu kaga tegay ninkani in aanay ahayn meel jacayl iska daaye aan aadama damiirlihi ku kala tegi karin inta ay soo hor istaagtay ayaa waxa ay damacday in ay la hadasho iyada oo ilmaynaysa hase ahaatee arrinta wixii hore oo dhan ilowsiisa waxa ay ahayd markii ay aragtay isagoo aan doonayn in uu la hadlo xitaa ma uusan soo eegin haddaba maxay tahay sababtu ninkani nolosha ku cidleeyay gabadha waa uu indho laayahay oo waxba ma uusan arkayn waxa aanay arrintaasi gabadhii aqoonsatay markii uu kacay ee ay aragtay isagoo ku kutubaya u shahagtay indhoolayaasha naxdin iyo amagaag ayaa uu arrinkaa gabadhii ku noqday waxa ayna bilowday inay baarto waxa jaceylkeedii indhaha kaga dhacay ugu dambayntiina waxa ay ogaatay in maalintii uu shilku ku dhacay markii uu ninka goobta shaqada ka baxay uu toos u tegay cisbitaalkii la geeyey markii uu dhakhtarkii daweynayay xaalkeeda ka waraystayna wuxuu u sheegay in gabadhani ay indho beelayso oo sida keliya ee araggeeda loogu badbaadin karaahi ay tahay in la helo qof ugu deeqo indho maadaama ayan waxba gaarin shabakadda aragga
ninkii markiiba intuu orday ayaa waxa uu doonta damaanad wuxuuna cisbitaalkii isaga diiwaan geliyay inuu isagu indhihiisa ugu tabarucayo gabadha uu adduunka ugu jecel yahay shardiga kaliya ee uu ku xirayna waxa ay noqotay inaan gabadha loo sheegin in indhaha ay ku socotahay ayaan kuweedii ahayn waxa uu go'aansaday in maadaama uu indhihiisa u hibeeyay jaceylkiisa isna iminka wixii ka dambeeya yahay indhoole sidoo kalena yahay danyar garabrarato ahaa oo aan indhola'aan xoogsan karin isla markaana ay adag tahay inuu damaanad qaado nolosha dhaqaale ee looga baahan yahay haddii uu guursado gabadhan uu jecel yahay inuu iyada u dhaafo nolosha wanaagsan iyo araggaba una ogolaado inay quruxdeeda ku waarto raadsatana nin hanan kara oo aan naafo ahayn isna waayaha iyo wakhtiga u dhaafo halkii ay geeyaan waa tabintii shaacir haddaba daawadayaal si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha ku xirnaaw oo subscribe saar beejkan cusub ee aayaha nolosha TV inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka go'in xasuus